halkani waa BBC Afrikada Bari saacadu waa 2 duhurnimo oo gow ah waxaad naga dhageysan kartaan mowjadaha gaagaaban FM-yada iyo boggeena internetka ee bbcsomali.com kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal waa duhurnimo khamiis ah bisha Agoosto tahay 27 sanadka 2020 waxaad sidoo kale toos nooga dhageysanaysaan boggeena Facebook ee BBC News Somali idaacadan duhurnimona waxaa idin soo jeedinaysaa anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi ee qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland oo warmurtiyeed ka soo saaray shirki uga socday magaalada Garowe xabsi daa'in aan cafis lahayn oo lagu riday ninkii laayay muslimiin ku cibaadeysanayay masaajido ku yaala New Zealand ninkan oo kamid ah dadkii ka badbaaday weerarkaasi ayaa yiri anigu waqtiga iyada waxaan ku soo socday masaajidka waxaan u jiray markii uu rasaastii ugu horeysay ay dhacday 200 oo mitir baan u jiray marka dadkii baa igu soo yaacay yaacidda dadku nagu soo yaaceen gaadhaan ka koray oo marka gaarigii baan ka booday halkii aan ka kacay ayay rasaastu qabsatay xeer ilaaliyaha gobolka Wisconsin ee Mareykanka oo shaaciyay magaca askarigii dhabarka ka toogtay ninkii madowga ahaa Tanzania oo mamnuucday 3 diyaaradood oo kale oo ay Kenya leedahay qodobadaas oo faahfaahsan ayaad ku dhageysan doontaan idaacadan duhurnimo oo ay wadajir u soo saareen Cabdiraxmaan Cali Dimbiil iyo Samiir Cabdullaahi Jaamac balse waxaa intaas oo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da waxaa inoo haya Ciise Xaaji Cabdulle oo gurigiisa ku sugan mahadsanid Kawthar duufaanta Laura ayaa ku dhufatay xeebaha ku yaala koonfurta dalka Mareykanka waxayna wadataa dabeyl saacadiiba jarayso 240 kilomitir magaalada Louisiana duufaantu waxay sidoo kale wadatay fatahaado wararku waxay sheegayaan in dhismooyin badan dumeen halka ku dhawaad 250,000 oo qofna ay koronto la'aan yihiin duufaantan ayaa tii ugu xoogneyd ee ku dhufata dalka Mareykanka in ka badan 150 sano maxkamad ku taala dalka New Zealand ayaa xukun ku riday ninkii 51 qof ku laayay labada masaajid waxaa lagu xukumay xabsi daa'in aan cafis lahayn waa qofkii ugu horeeyay taariikhda dalkaasi soo mara xukunkan ninkan oo ka soo jeeda dalka Australia ayaa horey u qirtay dambiga inuu dilay 51 qof isagoo sidoo kalena isku dayay inuu weerarkaasi saddexaad ku dilo 40 qof oo kale ra'iisul wasaaraha dalkaasi New Zealand Jacinta Ardern waxay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay in ugu dambeyn cadaaladda la horkeenay ninkan cadaanka cunsuriga ah xogayaha guud ee shirkadda TikTok ayaa xilkaasi iska casilay 3 bilood kadib markii uu xilkaasi qabtay Kevin Mayer ayaa shaqaalaha u sheegay in xaaladda siyaasadeed ee isbedeshay isbuucyadii ugu dambeeyay saas awgeedna uu xafiiska banaynayo madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ayaa ka digay halista ka jirta agagaarka biyaha Shiinaha xukuumadda Beijing ayaa sare u qaaday howlgalladeeda military ee agagaarka Taiwan oo ay u aragto jasiirad Shiinaha ka tirsan militariga Ruushka waxa uu ku eedeeyay ciidamada Mareykanka inay ka dambeeyeen isku horimaadyo u dhaxeeyay labada ciidan ee waqooyi bari ee Suuriya halkaas oo ay ku dhaawacmeen qaar ka tirsan militariga Mareykanka Ruushka ayaa ku eedeynaya Mareykanka inay jabiyeen heshiisyadii u dhaxeeyay saas awgeedna la isku dayay in la joojiyo mid ka mid ah gawaarida roondada sameynaya Ruushka kadibna ay ka dhalatay israsaaseyn ugu dambeyntiina kooxda wadaxaajoodka ee galbeedka Afrika ayaa waxay sheegayaan in afgambiga military isbuucii hore ka dhacay dalka Mali lagu doonayo in lagu soo dhiso xukuumad ku meel gaar ah oo 3 sano dalkaasi ka taliso balse urur goboleedka ECOWAS waxa uu shaaca ka qaaday inaysan ogolaan doonin xukuumad ku meel gaar ah oo 1 sano ka badan xilka haysa aan dib ugu celiyo Kawthar iyo barnaamijka qaybiisa kale aad baad u mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa Ciise Xaaji Cabdulle oo warkay nooga soo akhrinayay gurigiisa markana u diyaar garoowa qaybaha kale ee idaacadeena door wanaagsan mar kale dhageystayaal aan ku bilaabna ee madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa warmurtiyeed ka soo saaray shirki maalmahanba uga socday magaalada Garowe waxaabay ka soo baxay shirkaasi waxay noo soo koobayaa wariye Axmed Caawil Jaamac oo Garowe ku sugan
warkan ka soo baxay Puntland iyo Jubaland ayaa lagu sheegay in ay magaalada Muqdisho ay tagi doonaan labada madaxweyne waxaan lagu yiri warmutiyeedkan in ay ka dhalatay shir la filayo Muqdisho inuu ka dhaco kadib markii wada hadal madaxda maamulada iyo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya khadka telefoonka uu ku dhaxmaray beesha caalamka ayaa loogu mahad celiyay warmutiyeedkan Puntland iyo Jubaland ka soo baxay hadalka labada madaxweyne ay soo saareen ayaa ka dabacsanaa hadaladoodii hore Axmed Maxamed Islaan madaxweynaha Jubaland oo khudbad kooban jeediyay ayaa bogaadiyay shirka maalmihii ugu dambeeyay Garowe uga socday waxaana uu ku baaqay isku tanaasul ama dareen mas'uuliyadda la dareemo oo qof waliba maanta kursiga uu ka tagay laakiin uu garto waxa uu ka tagayaa waxa ay noqonayso waa mid faran markaa nin kastoo mas'uul maanta ama heer state ha noqoto ama heer federaal ha noqotee inuu garto maanta xaaladda waddanka uu ku jiray waxa ka iman karay iyo meeshii istaagi karayso taasaa waxay ahayd waxa aad aan saaxiibkiisa Siciid iyo madaxdii reer Puntland iyo akhyaartii waxgaradkii aan ugu nimid aan kala hadlaynay danta dalku maxay tahay maxaase anaga nagala gudboon wax badanna waxaan istusaynaa waxay ahayd in qof waliba meesha uu taagan yahay tanaasul uu sameeyo dadkan sidii la isugu wadi lahaa waddankan meeshii la geyn lahaa sida si nabad ah doorasho uga dhici lahayd waqtigeeda ku dhici lahayd khalkhal siyaasadeedna oona u yimaadeen waayo marka taariikhda dib ugu noqoto isbeddelka siyaasadeed ee waqtigiisa ku dhacay Soomaaliya wuxuu u geystay tallaabooyin horey loo qaadayo wax kastoo markaa caqabad ku keenay shirkan ayaa daba socday shirkii Dhuusamareeb 3 ee dhawaan heshiiska doorashada laga soo saaray kaasi ay ka qayb galeen madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha Galmudug madaxweynaha Hirshabeelle madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Puntland iyo Jubaland ayaa shirkaasi ka hor yimi waxaana ay sheegeen in uusan qusayn qodobadii ka soo baxay shirkaasi maadaama ay sida ay sheegeen aysan ka qayb galin shirka magaalada Dhuusamareeb ku soo gabagaboobay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani oo hadal kooban jeediyay waxa uu rajo wanaagsan uu ka muujiyay shirka magaalada Muqdisho la filayo inuu ka dhaco runtii waxaan rajaynaynaa kulamada ka dhici doona magaalada caasimadda in ay ku soo gabagaboobi doonaan si wanaagsan oo maslaxadda ummadda danteeda ku jirto wixii halkaa ka soo baxana kulli waqtigeeda ayay ahaan doontaa haddii Ilaahay ka dhigo waxaan runtii halkii ku soo gabagabeynayaa in kulankii halka dhacay oo kulan muhiim ahaa gudiyadii kala duwanaa ee ka qayb qaatana ay runtii aad u lafagureen xaaladda dalku marayo iyo marxaladda hadda ku aadan intaasna waxaan rajaynayaa inay waxtar u noqon doonto dhismaha dawladnimada Soomaaliya maalmahan ayaa la filayaa in madaxweynaha Jubaland iyo madaxweynaha Puntland ay magaalada Muqdisho ay gaaraan waxaana maanta magaalada Kismaayo dib ugu laabtay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan aad buu mahadsan yahay wariye Axmed Caawil Jaamac oo Garowe joogay oo ahaa inala socodsiinay waxyaabihii ka soo baxay shirka oo maalmahanba madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland halka uga socday markana New Zealand maxkamad ku taala dalka New Zealand ayaa xukun ku riday ninkii 51 qof ku laayay labada masaajid ee ku yaala dalkaasi waxaa lagu xukumay xabsi daa'in aan cafis lahayn waana qofkii ugu horeeyay ee taariikhda dalka New Zealand ee xukun noocan ku dhaco ninkan oo ka soo jeeda dalkaasi Australia ayaa horey u qirtay dambiga ah inuu dilay 51 qof isagoo sidoo kalena isku dayay inuu weerarkiisa saddexaad ku dilo 40 qof oo kale haddaba si aan u ogaano sida ay wax u dhaceen ama uu dhacay xukunkaas iyo qaabka looga falceliyay ayaa waxa ay suura gashay in khadka telefoonka ee magaalada Christchurch aan ku wareysto Axmed Xasan Tani oo ku sugnaa maxkamadda dacwadiisa lagu qaadayay sidoo kalena kamid ahaa dadka weerarkaasi ka badbaaday wallahi runtii qaabka ay u dhacday maxkamadaynta afartii maalmood ee soo socotay waxay ahayd qaab aad iyo aad u cajiib ah oo runtii maxkamadda New Zealand ay aad iyo aad ay ugu furtay laabta iyo qalbiga ummadda islaamka ah ee meeshan degan run ahaantii maalintii ugu horeysay waxaa la warsanayay dadkii victimka ahaabaa la warsanayay iyaga oo ka hor akhriyay statementkooda judgeka iyo ninkii wax laayay ee mujrimka ahaa aba ka hor akhriyaya oo qof walba dareenkiisii u cabiraya cajiiba oo runtii xorriyadii ku jirto
saddexdii cisho ee ugu horeysay howlahaasaa la waday waxaa la warsaday 51 qof oo ay eheladoodii ay ku dhinteen iyo 40 qof oo iyagana dhaawac uu soo gaadhay oo uu ninkaasi dhaawacay marka la isku daro 91 qof baa la warsaday oo maxkamaddu ay statementkooga ka bixiyey saddexdii cisho ee ugu horeysay saddexdii cisho ka bacdii maalintii afraad oo maanta ahayd waxay ahayd maalintii xukunka ay ahayd marka waxaa la isku soo ururiyey wax allaaliyo wixii lagu wada hadlay oo dhan baa la isku soo ururiyey dabadeed xaakimku halkaas ayuu ka gaadhay go-aankiisii xukunka ahaa uu ku gaadhay waa markii ugu horeysay ee New Zealand qof lagu xukumo xabsi daa'im bal waxaad noo sheegtaa sida dadka New Zealand gaar ahaan dadka eheladooda iyo qaraabadooda ay ku dhinteen weerarkaasi sida ay uga falceliyeen xukunkan lagu riday ninka geystay weerarka run ahaantii waxaan loo arkay inuu ahaa xukun cadaalada dadkiina waxay farxad iyo odos iyo reyn ay maxkamadda dhexdeedii ka muujiyeen runtii waxay ahayd xukun aad dadku ugu farxeen dadkuna ay u arkeen in ay cadaaladii heleen anigu waxaan ka mid ahaa dadkii ka badbaaday dilkaa ka badbaaday marka si guud maanta waa sida jawiga magaalada Christchurch magaalada maanta waa farxad iyo reyn waa guul iyo gobonimo waa cadaaladii oo la gaadhay dadkii ay dadku ka dhinteen iyo dadkii dhaawacmay iyo dadkii ka badbaadayba runtii waxay u arkaan inay heleen inay cadaaladii heleen bay u arkaan waxaanan ku mahadinaynaa shacabka New Zealand iyo dowladda New Zealand intaba waanu uga mahadcelinaynaa dadkuna way midoobeen ninkani wuxuu doonayay dadka inuu kala kaxeeyo laakiin dadkii wuu mideeyey ummadii New Zealand mid bay noqotay mid baananu nahay iminka waxaad ka garanaysaa maanta maxkamadda horteeda dad badan oo New Zealandera ayaa yimiday oo taageerayay ummadda islaamka ummaddu waa mid reer New Zealand oo dhanna waa mid markaan ka soo tagno dadka New Zealand iyo dhibanayaashaba qaabka ay uga falceliyeen xukunkiisa waxaad sheegtay in adiga tani ahaan aad ka mid ahay dadkii ka badbaaday weerarkaas balan xoogaa dib ugu laabano dhacdadaasi waxaad noo sheegtaa qaabka aad uga badbaaday iyo guud ahaanba maalinkaas sida ay wax u dhaceen runtii anigu waqtigaa iyada ah waxaan ku soo socday masaajidka waxaan u jiray markii uu rasaastii ugu horeysay ay dhacday 200 mitir baan u jiray marka anigu maan daagin hore ayaan u socday marka dadkii baa igu soo yaacay yaacidda ay dadku nagu soo yaaceen gaadhaan ka koray marka ninkii gaadhiga watay inaan Soomaaliyeed ku ahaa ayaan ku yidhi dhaqaaq wuu diiday inuu dhaqaaqo marka gaadhigii baan ka booday halkii aan ka kacay ayay rasaastu qabsatay inankii qudhiisi wuxuu hoos galay maxay ahayd wuu ka badbaaday isna oo wuxuu hoos galay shukaanta hoosteedii buu galay anigu markaas sidaasaan uga badbaaday qaraxa laakiin haddaan halkaasii fadhiyi lahaa saas way ugu dayi lahayd run ahaantii markii ay dadku nagu soo yaaceen dad badan oo ooyaya oo qaylinaya oo sarwaxan samaynaya ayaa nagu soo yaacay annaguna markaa masaajidkii baanu kusoo soconnaa daqaada waayey ayaan ka booday gaarigii markaan ka boodayna waxaan ka booday derbi ayaan ka booday si aan ugu dhunto markaa qayladii iyo tawaxankii iyo buuqii iyo wareerkii iyo jahawareer baa markaa dhacay meel loo socdiyo dhinac loo dhaqaaqo weyn markaa waxay ahayd maalin xalxala ayay maalintaasi ahayd kaasi waxa uu ahaa Axmed Xasan Tani oo ku sugnaa maxkamadda lagu qaaday dacwadda ninkaasi iyo sidoo kale ka mid ah dadka weerarkaasi ka badbaaday aan Facebook eego dhageystayaasha qodobkaas raayigooda ka soo dhiibtay waxaa ka mid ah Maxamed Muuse Cabdullaahi oo jooga Caabud Waaq waxa uu leeyahay xabsi daa'inka lagu riday ninka laayay muslimiin ku cibaadeysanayay badka alle ee ku yaala New Zealand runtii aad baan u soo dhaweynaya xukunkaasi lagu fuliyay waliba xabsi daa'in kaliya ma ahan aniga waxaan qabaa ayuu leeyahay in la toogto waa sida uu qabo dhageystahaasi Axmed Shine oo Hargeysa ka soo qoray isna waxa uu leeyahay xukunka lagu riday ninka 51 qof ku dilay wadanka New Zealand ee la xukumay madaxa wuxuu leeyahay ha ku furto runtii anna waan soo dhaweynayaa waayo waxay cashar u noqon doontaa
kuwa ku fekeraya falkaas oo kale. Maxamed Saleebaan oo Burco ka soo qoraysna waxa uu leeyahay ninkaas lagu xukumay xabsi daa'inka ee xasuuqay dadkii Islaamka. waxaan u arkaa in xukunka ku dhacay uusan u qalmin falka uu geystay, balse waa xoogaa cadaalad ah. waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC-da ee Facebook-ga. waa BBC Media Action oo idin leh goordhow filo barnaamij cusub oo aan kaga hadli doono sheekooyin la xiriira qatarta saameynta iyo sida ay tahay in loola tacaalo cudurka COVID-19. kani wuxuu kaga duwayay kuwii kale waxa weeye waa mid meel walba ka dhacaya ayna xukumin cimiladuba. waxaa kaloo barnaamijkeenan idinkugu haynaa maadeys xiise leh. nuurto isbitaalka aan gabadha seexin waa goob bukaanadan cudurka qaba loogu talagalay. sidee niyadda u dejiya anigoo gabartayda isbitaal jirada la jiifiyay hayso. ka dhagayso BBC laanteeda afka Soomaaliga maalin kastoo Talaado ah saacadu markay tahay 2:15 daqiiqo ee xilliga bariga Afrika laga bilaabo 1 bisha September ee fooda nagu soo haysa ee sanadkan 2020. waxaa kale oo barnaamijkan iyo barnaamij kale oo ay ka diyaarin doonaan deegaanadooda ka dhagaysan doontaan idaacadaha aan bahwadaagtanahay ee ku yaala qaar ka mid ah deegaanada Soomaalida. barnaamijkan cusub waxa idin soo jeedin doonta anigoo ah Firdawso Sheekh Cabdiraxmaan. waa hagaag markana xeer ilaaliyaha gobolka Wisconsin ayaa waxa uu shaaciyay magaca askarigii dhabarka ka toogtay ninkii madowga ahaa oo xadii la soo dhaafay halka lagu toogtay taas oo horseeday dibadbaxyo rabshado wata. Josh Cole ayaa wariyaasha u sheegay in Rustin Shekhe uu dhabarka kaga dhuftay 7 xabadood isagoo sii furaya albaabka gaarigiisa. wararkaas oo faahfaahsan waxa inoo haya Faarax Lamaane. toogashada ayaa waxa ay dhalisay mawjado cara ah dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay kuwaasoo qaarkood rabshado ay isu bedeleen. Arbacadii ayaa waxaa la xiray qof 17 jir ah kadib markii 2 qof la dilay mid kalena dhaawac uu soo gaaray fiidnimadii Talaadada. Jacob Blake iminka isbitaal ayuu yaalaa waxaana uu ka soo kabanayaa dhaawacyadii soo gaaray waxaana la sheegayaa in miyir uu qabo, laakiin qareenadiisu waxa ay sheegayaan in mucjiso ay noqon doonto in la arko mar kale isagoo lugihiisa ku soconaya. xilligii la toogtay wixii ka dambeeyayna madaxweyne Trump waxa uu Kenosha u diray askar dheeraad ah si ay uga hortagaan buu yiri bililiqada rabshadaha iyo sharci la'aanta ka jirta wadooyinka Mareykanka. sidoo kale FBI-da ayaa ilaa iyo 200 oo sarkaal halka u dirtay. rabshaduhu waxa ay ku sii fideen magaalooyin kale oo ay ku jiraan Portland, Oregon iyo Minneapolis, Minnesota oo ahayd halkii ay boolisku ku dileen bishii May George Floyd kaasoo dilkiisa ay ka dhasheen rabshado ay horkacayeen kooxda la yiraahdo Black Lives Matter oo dal iyo dibadba isqabsaday. askarta ayaa iyagoo isku dayay inay qabtaan Mr Blake waxa markii hore ay ku rideen bastoolada korontada leh ee taserka loo yaqaano, laakiinse uma aanu istaagin. markii uu iska furay ridda gaarigiisa ayaa askari la yiraahdo Rustin Shesky oo waaxda booliska ee Kenosha 7 sanadood ka shaqeynayay uu 7 xabadood dhabarka kaga dhiftay. rabshado waaweyn ayaa ka dilaacay gobolka Wisconsin iyo gobollo kale waxaana baraha bulshada lagu arkayay nin qori la cararaya oo dad ay cayirsanayaan kaasoo dhulka ku dhacay kadibna rasaas ku furay dadkii eryanayay. waxaa kaloo jiray fiidiyoyo kale oo muujinayay dad rayida oo hubaysan oo qabay dareeskan militariga u eg kuwaasoo taagnaa dibadda meherado ganacsi oo la sheegay inay ilaalinayeen. mahadsanid Faarax Lamaane. Tanzania ayaa mamnuucday 3 diyaaradood oo kale oo Kenya leedahay iyadoo uu sii xoogeysanayo muranka u dhaxeeya labadan dal ee dariska ah. xiisada kacsan ee labadan dal ayaa sii xumaanaysay tan iyo intii uu dunida ku baahay fayraska corona. faafahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaha BBC-da Cabdiqaadir Yuusuf Cali. waaxda diyaaradaha ee dalkaasi Tanzania oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano TCAA ayaa mamnuucday diyaaradaha tirsigoodu uu yahay F540 ee Kenya Express iyo Safarilink Aviation. diyaaradahaasi ayaa maalin walba u duula goobaha dalxiiska ee Kilimanjaro iyo Zanzibar. Hamza Johari oo ah agaasimaha guud ee waaxdaasi ayaa sheegay in sababta ugu weyn ee looga mamnuucay diyaaradahaasi dalkaasi Tanzania ay tahay muranka u dhaxeeya labada dal ee la xiriira fayraska corona. Johari ayaa sidoo kale sheegay in sababta kaliya ay diyaaradahaasi Kenya Tanzania loogu ogolaan karo ay tahay in muwaadiniinta reer Tanzania loola dhaqmo sida muwaadiniinta wadamada kale. marsii horeysay shirkadda diyaaradaha Kenya Airways ayaa laga mamnuucay Tanzania kadib markii dowladda Kenya ay ku amartay rakaabka ka imanaya Tanzania inay muddo 14 maalmood ay iskarantiilaan. tan iyo markaasi wixii ka dambeeyay Kenya ayaa kordhisay tirada dalalka ay muwaadiniinteeda soo gali karaan iyagoon soo marin karantiilka 14 maalmood ah, balse ilaa haatan waxaa liiskaasi ka maqan dalkaasi Tanzania.
madaxweyne john magufuli ayaa bishii juun ku dhawaaqay in tanzaniya uusan ka jirin coronavirus inkastoo dowladiisa lagu cambaareeyey sida isaga dhagatirtay xanuunkan dunida halakeeyey. shirkadaha diyaaradaha ee Kenya ayaa kowdii bishan Agoosto dib u bilaabay duulimaadkoodii caalamiga ahaa tan iyo markii bishii Maarso dalka laga joojiyay duulimaadyada caalamiga ah sababo la xiriira fayraska corona. aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Yuusuf Cali. markana wararkii ciyaaraha waxaa ka mid ah siiba suuqa kala iibsiga ee ciyaartooyda kooxda Chelsea ayaa waxay la soo wareegtay ciyaartooyga reer England waa Ben Chilwell waxayna kala soo wareegtay kooxda Leicester waxaana uu u saxiixay qandaraas soconayo muddo 5 sano ah waxaana ay kula soo wareegtay lacag dhan 45 milyan oo pound. Chilwell waxa uu noqonayaa ciyaartooygii saddexaad ee xagaagan ku soo biira kooxda Chelsea waxaana ka horeeyay Hakim Ziyech oo 27 sano jir ah oo ay kala soo wareegtay kooxda Ajax iyo weeraryahanka 24 jirka lagu magacaabo Timo Werner oo ay kala soo wareegtay kooxda RB Leipzig. markana baafinta waxaa sii wada jira stuudiyaha BBC ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Siciid Xasan iyo Faysal Bishaar Aligo. hayaligo mahadsanid Caasha. baafinta ugu horeysana maanta waxay naga soo gaartay Xasan Muuse Warsame oo jooga Boorame. waxa uu baafinayaa Farxiya Muuse Warsame waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Kenya sanadii 2009 haddaba haddii ayna maqlayso Farxiya Muuse Warsame ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Xasan Muuse Warsame iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorame. Caasha Jibriil Nuur oo joogto Boorame waxay baafinaysaa Maryan Xasan Jibriil waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Kenya 2010 haddaba haddii ayna maqlayso Maryan Xasan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Xasan Jibriil iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorame. محمد داهر روبله oo jooga Boorama waxa uu baafinayaa kaltuun Maxamed Daahir waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Ingiriiska sanadii 2016 haddaba haddii ayna maqlayso kaltuun Maxamed Daahir ama ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Maxamed Daahir Roble iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorama. Sahra Muumin Nuur oo joogto Boorama waxay baafinaysaa Maryan Cabdi Ducaale waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Turkiga 2017 haddaba haddii ayna maqlayso Maryan Cabdi Ducaale ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Zahra Muumin Nuur iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorama. Cabdi Cawaale Yunis oo jooga Boorame waxa uu baafinayaa dadka kale ah Mustafa Cawaale Yunis iyo Zainab Cawaale Yunis waxa uu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2015 haddaba haddii ayna maqlayaan Mustafa Cawaale Yunis iyo Zainab Cawaale Yunis ama ay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo Cabdi Cawaale Yunis iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorame. Aamina Axmed Xirsi oo joogto Laascaanood waxay baafinaysaa Maryan Axmed Xirsi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2017 haddaba haddii ayna maqlayso Maryan Axmed Xirsi ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Aamina Axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Laascaanood. Cabdi Cabdullaahi Yunis oo jooga Boorame waxa uu baafinayaa Maxamed Cabdi Cabdullaahi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2015 haddaba haddii uu maqlay Maxamed Cabdi Cabdullaahi ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cabdi Cabdullaahi Yunis iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorame. Shukri Cawil Xasan oo joogto Laascaanood waxay baafinaysaa Xaawo Cawil Xasan waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Kakuma 2011 haddaba haddii ayna maqlayso Xaawo Cawil Xasan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Shukri Cawil Xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Laascaanood. Kaltuun Cumar Cusmaan oo joogta Boorama waxay baafinaysaa Mukhtaar Cumar Cusmaan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Eritrea sanadii 2014 haddaba haddii uu maqlay Mukhtaar Cumar Cusmaan ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Kaltuun Cumar Cusmaan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorame. Maryan Axmed Faarax oo joogto Laascaanood waxay baafinaysaa Amran Axmed Faarax waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2016 haddaba haddii ayna maqlayso Amran Axmed ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Maryan Axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Laascaanood. Ilyas Faarax Nuux oo jooga Boorame waxa uu baafinayaa Cabdisamad Faarax Nuux
waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka masar sanadii 2010. haddaba haddii uuna maqlayo cabdisamed faarax nuux amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyey ilyaas faarax nuux ayadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorame. hodan cabdulqaadir cali oo joogto laascaanood waxay baafinaysaa axmed cabdiqaadir cali waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan liibiya 2014. haddaba haddii uuna maqlayo axmed cabdiqaadir amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo hodan cabdiqaadir ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay laascaanood. xuseen cali maxamed oo jooga boorame waxa uu baafinayaa saciid cali maxamed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ethiopia sanadii 2013. haddaba haddii uuna maqlayo saciid cali maxamed amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyey xuseen cali maxamed ayadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorame. ilyaas cabdi bulbul oo joogo boorame waxa uu baafinayaa aamine ilyaas cabdi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Kenya 2012. haddaba haddii ayna maqlayso aamine ilyaas amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo ilyaas cabdi ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorame. kaaha cabdi muuse oo joogta boorame waxay baafinaysaa fardowsa cabdi muuse waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Liibiya sanadii 2014. haddaba haddii ayna maqlayso fardowsa cabdi muuse amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyey kaaha cabdi muuse ayadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorame. daahir yunis maxamed oo jooga boorame waxa uu baafinayaa faadumo yunis maxamed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2015. haddaba haddii ayna maqlayso faadumo yunis amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo daahir yunis ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorame. daahir muuse aamiin oo jooga boorame waxa uu baafinayaa maxamuud muuse aamiin waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Liibiya sanadii 2012. haddaba haddii uuna maqlayo maxamed muuse aamiin amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo daahir muuse aamiin ayadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorame. madiine cateeye cilmi oo joogto boorame waxay baafinaysaa mustaf axmed meed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan talyaaniga 2014. haddaba haddii uuna maqlayo mustaf axmed meed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo madiine cateeye ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorame. ibraahim axmed bulaale oo jooga boorame waxa uu baafinayaa sahre axmed bulaale waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2012. haddaba haddii ayna maqlayso sahre axmed bulaale amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo ibraahim axmed bulaale ayadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorame. daahir muumin yuusuf oo jooga boorame waxa uu baafinayaa cumar daahir muumin waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya 2018. haddaba haddii uuna maqlayo cumar daahir amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo daahir muumin ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorame. jaamac axmed good oo jooga boorame waxa uu baafinayaa cabdulaahi axmed good waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Suudaan sanadii 2015. haddaba haddii uuna maqlayo cabdulaahi axmed good amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyey jaamac axmed good ayadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorame. saciide maxamed xuseen oo joogto boorame waxay baafinaysaa faadumo maxamed xuseen waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2013. haddaba haddii ayna maqlayso faadumo maxamed xuseen amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo saciide maxamed ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorame. xasan ibraahim cabdi oo jooga boorame waxa uu baafinayaa daahir ibraahim cabdi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Talyaaniga sanadii 2009. haddaba haddii uuna maqlayo daahir ibraahim cabdi amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo xasan ibraahim cabdi ayadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorame. jamaad cilmi amiir oo joogto boorame waxay baafinaysaa saciid cilmi amiir waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan koonfur Afrika 2009. haddaba haddii uuna maqlayo saciid cilmi amiir amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo jamaad cilmi ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorame. jibriil daahir yunis oo jooga boorame waxa uu baafinayaa maxamed daahir yunis waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Suudaan sanadii 2010. haddaba haddii uuna maqlayo maxamed daahir yunis amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo jibriil daahir yunis ayadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorame. xasan yuusuf colaad oo jooga
Boorama waxa uu baafinayaa Cabdulaahi Yuusuf Colaad waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Tunisia 2014 haddaba haddii uu maqlayo Cabdulaahi Yuusuf Colaad ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Xasan Yuusuf Colaad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boorama. baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay Muuse Jaamac Xanduule oo jooga Boorama waxa uu baafinayaa Cusmaan Jaamac Xanduule waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ethiopia sanadii 2014 haddaba haddii uu maqlayo Cusmaan Jaamac Xanduule ama ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Muuse Jaamac Xanduule iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorama. baafintiina maanta waa naga intaa. aad bay u mahadsan yihiin Faysal iyo Caysho inala socodsiinay barnaamijkii baafinta waxaan inta ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacadeennii duhurnimo oo ay wadajir u soo saareen Cabdiraxmaan Cali Dimbiil iyo Samiira Cabdulaahi Jaamac anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdulaahina aan idinla socodsiinayay waxaan dib wada ugu kulmi doonaa 5 galabnimo oo gow ah hadduu eebaha awoodda leh yiraahdo inta ka horeysa anagoo isku duuban oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.